السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودياشا ku xidhan channelka dadweynaha ee YouTube. Dunidan ayaa waxaa nagala nool dad Ilaahay ku galaadaystay awoodo dhinaca jirka ah. Awoodahaasi oo siinin dadka kala badankooda. Haddaba barnaamijkeena maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa dad leh awoodo cajiib ah. Haddaba daawasho wacan barnaamijka dhammaystiran. Ku xidhnow channelka dadweynaha, subscribe saar oo ku soo biir. Houston Jones ayaa wuxuu ka mid yahay dadka gudaha internetka caanka dhex ah isla markaana internetka la soo galay arrimo cajiib ah oo aan dadka kale hore looga baran. Haddaba ninkan ayaa noocyo badan oo rasaasta ka mid ah aysan jirkiisa waxba ka qaadin. Dmytro Khaladze ninkan ayaa waxaa la yiraahdaa waa ninka ugu awoodda badan qarnigan. Waxyaabaha uu sameeyana waa waxyaabo wada yaab kaliya qof waliba arka. Ninkan ayaa waxa uu awood u leeyahay inuu kor u qaado oo tunkiisa ku qaado nooc waliba oo kamid ah faraska. Waxa uu awood u leeyahay inuu faras dhan degtiisa ku qaado. Maaha filimaantii aad ka daawanaysa MBC Actionka, waa shakhsi caadi ah oo nool. Xataa faraska ayaa rumaysan waaya waxa uu ninkan ku dhaqaaqo. ninkan ayaa waxa uu sheegay ficiladani uu sameeyo in aysan isaga iyo xayawaanada midna waxba u dhimin. Intaasi oo kaliya ma aha, waliba wuxuu awood u leeyahay inuu gaaridan kor u dalaco. Wuxuu awood u leeyahay oona dib ku ahayn inuu 4 qof hal gacan oo kaliya kor ugu qaado. Huang Hoi ninkan ayaa iyadoo da'diisu ahayd 28 sano waxa uu is arkay inuu awood u leeyahay inuu fartiisa ku jabin karo geedka adaga lagu magacaabo qumbaha. Arrinkaasi oo adag tahay inuu qof caadi ah sameeyo. Intaas kadib ayaa markii uu ogaaday inuu arrintan isaga oo kaliya uu sameyn karo ayaa waxa uu bilaabay inuu wadooyinka ka sameeyo masraxiyad oo dadka ku tusayo awoodiisa. Arrintan ayaa dadka aad soo jeedatay waxa uu jabiyay lambarka qiyaasta rekoorka Guinness waxa uu noqday shakhsiga kaliya ee fartiisa ku jabin kara qumbaha. hawshan ayaa in muddo sidaas ku waday ilaa ay markii dambe ay fartiisa ku jabtay. Zhao Rui waxa lagu naanaysaa ninkii xadiidka ahaa. Ninkan ayaa waxa uu leeyahay jidh aad u adag oo aad mado inay yihiin bir. Waxa uu sameeyaa waxyaabo aan hadda ka hore loo arag. Wiilkan ayaa waxa uu ka qayb galay tartamo dhinaca dagaalka iyo adkaysiga ah. Waxa uu awood u leeyahay inuu u adkaysto in xagga hoose bir laga soo galiyo dhabarkana lagu dul jabiyo dhagax. Midaasi waxa ka daran waxa uu wiilkani awood u leeyahay inuu qoortiisa ku riixo mindi gaari lagu daba xidhay. aad ayaad ugu mahadsantiin daawashada barnaamijka. Intaas ayuu maanta barnaamijkeena maanta nagu eegyahay. Intaynu barnaamijyada dambe sugi doonaba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Ku xidhnow channelka dadweynaha, subscribe saar oo ku soo biir.